afhayeenka dowladda federaalka Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo ka hadlay weerarkii dhawaan kooxaha hubaysan ay ka geysteen suuqa Westigeed ee magaalada Nairobi ayaa waxa uu ku tilmaamay in falkaasi uu ahaa fal xun oo dhibaato u keenay dad aan waxba galabsan waxaana afhayeenku uu muujiyay in si midaysan ay ula dagaalamaan Kenya iyo Soomaaliya kooxaha dhibka wada sidoo kale waxa uu uga digay dowladda Kenya in aysan noqon talaabooyinka ay qaadayso kuwa saameyn ku yeesha dadka Soomaalida ah oo qaxootiga ku ah dalkani Kenya waxaana ugu baaqay in Kenya ay kala saarto shacabka iyo dadka dhibka wada weerarkii Westgate runtii wuxuu ahaa dhacdo aad u foolxun oo si bareer ah aan la socotay kooxaha al-shabaab ayagoo basuginba inay sheegteen oo runtii aad dareemayso dhibka ay u keeneen Soomaalida ku dhaqan dalkan Kenya marka anaga waxaan aaminsanahay in midnimadeenu Kenya iyo Soomaaliya ay ku jirto kooxahan meel looga soo wada jeesto muxuu ahaa la iska qabto Soomaaliya oo nabad ahna inay noqonayso Kenya nabad ah mid kale waxaan iyadana ka dignay in dawladda Kenya talaabada ay qaadayso falki dhacay darteed inuusan dhib u keenin ama aysan Soomaalidu u noqonin dad target ah ama discrimination lagu sameeyo runtii arintaasna waxaan la qabnaa hay'adaha Human Rights Watch iyo Amnesty International ayagana ka hadlay mid kale runtiina madaxweyne Uhuru Kenyatta hadalkiisa qodbadiisii waxa ku jirtay in Soomaaliya iyada marka hore ay gurigooda soo dhisaan anaga waxaan leenahay Uhuru Kenyatta waxay u baahan tahay in la kala saaro al-shabaab iyo shacabka iyo dawladda shacabka iyo dawladda waa kuwa doonaya inay nabadeeyaan Soomaaliya oo dhan inay maaragtay kooxaha al-shabaab ka saaraan waa kuwa u daneynaya shacabka Kenya si aysan al-shabaab dhib dambe halkan ugu geysan marka in la kala saaro cidda sheeganayso oo dhayso Kenyatta inay Soomaaliya ka baxaan waa kooxaha al-shabaab ee maaha shacabka iyo dawladda iyo shacabka Kenya iyo madaxdeedaba waxaan isleenahay in arintan ay qasab tahay in lagu midoobo la dagaalanka al-shabaab oo aysan naga dhumin naga leexinin maaragtay diiradda ah inaan kooxahaas maaragtay dhibkooda iska wada qabano afhayeenka oo waraysi gaar ah siinayay TV-gan Hon Cable oo la weydiiyay su'aal aheyd sida uu arko wada hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xalka kaliya ee Soomaaliya iyo Somaliland ay tahay wada hadallada oo sii socda ugu dambeynna la gaaro meel ay ku wada qanacsan yihiin labada dhinac dawladdu mar walba waxay aaminsan tahay in Somaliland habka kaliya ee xal looga gaari karo inay tahay xal nabadeed mid dib u heshiisiineed mid wada hadal ah dawladuna meel walba iyo goob walba inay ugu tagto ee wada hadalladaas uga qayb gasho walaalaha maaragtay Somaliland waa wax waajib ah haddaba si xal loo helo oo dadkaas loo qanciyo walaalaha ah si nabad ahna hadhow ay dhacdo in la isu yimaado waxyaalaha ugu horeeya waxay tahay bal in laga wada shaqeeyo isfaham iyo sidaan wada hadalna in maaragtay horta la isfahmo ileen annaga haddaan isku qancinin Somaliland waxa u roon iyagoo Somaliland nimadoodii iyo haysta iyo federaalkoodii qaybna ka ah dawladda dhexe ma waxa u roon inay gooni inta u istaagaan ay dawlad gooni ah noqdaan ay ka go'aan ummadda inteedii kale laakiin waxaan isleenahay bilowga wada hadalka inuu yahay mid keeni kara in labada dhinacba win-win situation inay soo baxdo marka ugu dambeyso waxaasoo dhan marka wax ku imaanaya hal maalin iyo laba maalin ma aha waa ognahay waxay u baahan tahay adkaysi labada dhinac in wada hadalkana la sii wado in qodax walba iyo meel walba soo baxdana tartiib la isaga qaado ugu dambeyntii la gaaro meel labada dhinac ku wada faraxsan yihiin shakin igama jiro inay taas ku dhamaan doonto Xasan Sheekh Cumar Hon Cable TV Nairobi